deeqdaas oo aan ugu talagalay in labada cisho ee bisha Ramadaan ka hadhay iyo maalinta Ciidda ay hadii ay beedankeed leeyahay ciidanka qaranku ee jiida hore jooga ay kuna afuraan kuna ciidaan waa maanta oo maalintii labaad aan halkan keenno taakula anagoo sidna ciidanka u sidno taas oo ay tahay un dhiirigelin ama inaanu tusno ciidanka qaranka maaragtay sida ay u taageersan yihiin dadka reer Soomaaliland alaabtan halkan ku sidna maanta waa laba meesin oo xoolaha kala jaada 420 neef oo ariya iyo 6 neef oo geela raashin iyo dawo afarta item ayaanu maanta idin guddoonsiinaynaa mana noqon doonto insha Allah biidnillaahi baari markii uu dambeysay gobolka Togdheer wuxuu diyaar u yahay inuu mar kastaba ka geysto ama muujiyo taageerada aanu hayno maaragtay ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland maanta wuxuu u dhan yahay waxaan ugu talagalay bishii barakeysan baan ugu jiraa Ramadaan afur baan ugu talagalay anagu waxaan kaloo barasabka u sheegayaa maanta waan soo degdegnay in hostaalka iyo MCH-kaba dawaan hayo anigu aan soo diri doono taakuleyntan aanu wadno ciidanka qaranka magaciisa waxa la yiraahdaa afur loogu deeqay ciidanka qaranka maadaama ay ku jiro bishii barakeysan Ramadaan maalmihii u khayrka badnaa waliba ay ku jiro xoolaha kan waxa iska kaashaday degmooyin tuulooyin iyo shaqaale weynaha gobolka Togdheer maanta kaliya ma aha ilaa 3 jeer oo hore ayay daawo iyo xoolo nool iyo kuwa mooda oo raashin ku jiro intaba keeneen maantana waxaan halkan ka gudboomaynaa 400 oo ariya 420 ariya iyo 6 geel ah iyo raashin iyo daawo waxaan kaloo aad iyo aad ugu mahadnaqayaa degmada la yiraahdo maxay ahayd tukarag oo ciidamadu ku sugan yihiin inay ilaa 2 jeer maantana u sidaan u keeni doonaan mar horena daawo gaarsiiyeen halkaas oo ciidan ku sugan yahay taakuladan dhiirigelinta ah ee ciidanka qaranka ay u sidaan gobol ahaan iyo ciidan ahaanba aad iyo aad baan ku mahadinaynaa idinkoo aan markii koowaad aan ahayn ee markii labaad ay tahay xoolaha sidaan oo ka kooban mood iyo noolba haday tahay geel iyo ari iyo haday tahay cunto iyo daawo waxaan leenahay haddaad garateen ciidankiinii iyo gobolkiinii xasuusta waxaan u maleynayaa anaguna xasuusan doonaa haddii la yiraahdo waana idii ognahay dhiirigelinta maadaama lagu jiro maalmihii barakeysnaa